jaaliyadda Soomaalida ku nool magaalada Cape Town waddanka Koonfurta Afrika ayaa waxay tacsiyo teeraan leh u direen geeridii ku timid madaxweynaha hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed kaasoo ku geeriyooday magaalada Dubai ee sultanka Imaaraadka Carabta ah. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ayna ka mid ahaayeen culimaaddin, madaxda jaaliyadda, haween iyo dhalinyaro kale iyaguna dhammaantood u tacsiyeeyay ehelidii uu ka baxay madaxweynuhu. Inna lillahi wa inna raaji'uun. Allahumma haristo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ku geeriyooday dalka sultanka Imaaraadka Carabta Abu Dhabi. hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaan taxsiirayaan halkaan uga daraynaa anagoo jaaliyadda South Africa ee ku nool magaalada Cape Town. madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf haristo هو مدحوين الصومال وحنا وسيلينا الصومالي ودن مدحوين عبد الله يوسف أحمد مدحوين أمة الصومالية أيوة هاي تيسي أيانا كنت ميد وحنا لنا أمة الصوماليات الله كسبر سيو الذي سي أروجي بدمان الله كسبر سيو أيانا لله وأنين بارتي مجاهد هاي ومتدر ودك الصومالية والجميع واحد بدلنا كقبتي وحنا إلهي تبارك وتعالى أيدي سيكون شيء كل نفس ذائقة الموت أفضل فومانت النور يا واحد اللي بلسا الجيدة وحاول الحمد لله روحك والله وحان تحسين في العيالة ولا بينهم عبد الله يوسف أحمد لا إله إلا الله سيدو ندخل كل شيء هذا وكل سنة إلهي نعم إلهي سمري الله نسيو وحان الشهد يا waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mid ka mid ah eheladii iyo qaraabadii Cabdullaahi Yuusuf ka baxay iyadoo sheegtay inay aad ugu xun yihiin geerida naxdinta leh oo ku imaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Ilaahi wa inna ilaahi raaji'uun. waxaan baa u darayaa Soomaali weyn oo dhan gaar ahaan Puntland meeshii uu ka soo jeeday waxaan tacsi gaar ahaan u dirayaa xaaskiisa iyo xaasiisa oo la yiraahdo xaawo irtiyaabne iyo caruurtiisa Cabdullaahi Yuusuf waa dhuntay uusan dhimanin waa taariikhiisa baa harayo wuxuu qaranka u qabtay oo quuga ku qoran Sheekh Shariif iyo Mariisul Wasaaraheena عبد الولي وفي تعشي عجيبة وتدبر التيرانية يصدح بري على كهوصلة دقيقة. الله إبراهيم دسر تلفزيون قناة الصومالية كيب تاون.